daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeennii arrimaha bulshada ee alaaba aad ka dhegaysataan ama ka daawataan raadiyo maqal magaaladani Oslo ee dalka Norway. Dhegaystayaal barnaamijkeena arrimaha bulshada maanta waxaan ku soo qaadanayaa waa maxay xuquuqda carruurta. Waxaa la ogyahay dad badan oo Soomaaliyeed inay ku dhiban yihiin waddanka Norway ama wadamada galbeedka oo ay dhibaato ka haysato inay isfahmaan hay'adda badbaadada carruurta iyo waalidiintu. Marka barnaamijkeena maanta waxaan ku eegaynaa inaan soo koobno dhowr qodob oo ah waa maxay xuquuqda carruurtu. Maxaa laga rabaa qofka waalidka korinaya carruur ee ku korinaya wadamada qurbaha inuu ogaado maxaa laga doonayaa. Marka waxaan soo qaadanayaa sharciga u yaala waddankan aan deganay Norway oo ah ilaa 240 qodob oo loogu talagalay in lagu dhaqo carruurta ku nool waddanka Norway. sidaan ognahay sharciga u yaala United Nationska ee carruurta in lagu ilaaliyo iyo sharciga Norway waa isku mid. marka bal waxaan isku daynaa marka inaan qodob u soo qaadano oo isku dayno ilaa intaan ka gaari karno. marka daawadayaal barnaamijkeena oo aan ku soo qaadanayo xuquuqda carruurtu qodobka koobaad waxa uu leeyahay qofku haddii uu keer yahay da'diisu ay tahay 18 jir waxa loo aqoonsanayaa marka inuu carruur yahay. waxa dhici karta qofku markuu ka yimaado waddanka Norway ama dibadda ka yimaado ama Soomaaliya oo kale qofka 18 jirka inuu qof weyn qof carruur leh qof reer leh laakiin waddanka lama ogola qofku hadduu ka hooseeyo da'diisu 18 waxa loo tixgelinayaa maaragtay ilmo carruura. marka qof kasta waalid oo haya ilmo da'diisu ay ka hooseyso 18 waxa looga rabaa inuu ilmaha ula dhaqmo sidii ilmo carruur oo kale. qodobka labaad waxa weeye lama ogola carruurta in la kala saaro iyadoo loo eegayo magarasa midabkooda diintooda dhaqaalahooda hadduu yahay magarasa ilmaha dhikaaba iyo haddii kaleba. marka sharcigaasi qodobkiisa labaad wuxuu tilmaamayaa carruurta ku nool waddanka Norway ama wadamada galbeedka inta badan inaan la kala sooci karin qabiil lagu kala sooci karin diin lagu kala sooci karin iyo midab iyo wixii lamida markaasi. marka lama ogola haddii marka qof waalid uu ku dhaqmo waxa laga qaadaya marka tallaabo sharciga waafaqsan. marka sharcigu ma ogola in carruurta la kala saaro oo la kala qaybiyo iyadoo loo tixraacayo marka midabkiisa haddii dhuuban yahay iyo haddii buran yahay midna. marka qodobka labaadna wuxuu leeyahay carruurta lama kala saari karo iyadoo markaa loo eegayo qodobadan hore soo sheegay. qodobka saddexaad wuxuu leeyahay sideeba carruurta u wanaagsan. hay'adaha la shaqeeya carruurta hadday noqoto booliska wasaaradda badbaadada carruurta iyo dhammaan cidda qusayso dhan wax kastoo dhaca waxa laga eegayaa maxaa ilmaha wanaagsan. lama eegayo waalidka maxaa u fiican lama eegayo dowladdu maxay rabtaa lama eegayo booliska muxuu doonayaa. laakiin hadday dhibi dhacdo arrinta waxaa lagu xalinayaa sida ugu wanaagsan ama waxa u wanaagsan ilmaha markaa in la sameeyo. marka hadii jeer waa muhiim oo inta badan waxaad maqlaysaa maxkamad baa la tegayaa dembiyaa dhacaya dadku inta badan waalidiintu waxay ka cawdaan waxay yidhahdaan mar walba carruurta loo xagleeyaa mar walba carruurta la taageera. laakiin maaha sidaasi waxa weeye sharciga qoran ee baarlamaanku ansixiyey ee lagu dhaqmayaa ah in mar walba laga fikiro waxa ilmaha u wanaagsan haddii marka ay timaado wax dhibaato ama mushkilad. qodobka afraad wuxuu leeyahay mas-uuliyadda carruurta. sharcigu wuxuu leeyahay ilmo kastoo ku dhaqan waddanka Norway waxa mas-uul ka ah dowladda cid markaa kula murmi kartaana ma jirto. marka dowladda mas-uuliyadda koobaad waxay saaran tahay dowladda. qodobka shanaad waxa weeye mas-uuliyadda waalidku mas-uul ayuu ka yahay ilmihiisa laakiin had iyo jeer waxaa muhiim ah iyadoon marnaba laga qaadayn mas-uuliyadda waalidka haddana waxaa habboon in lala shaqeeyo lala ogaado mas-uuliyadda markaa waalidku hayo. marka lama odhan karo ilmahan anigaa dhalay sidaan doonaan ka yeelayaa ama waa ilmahaygii oo anigaa markaa cid ugala hadli kartaa ma jirto. maadaama ilmuhu ku sugan waddanka Norway sharcigu wuxuu leeyahay waalidku xaq buu leeyahay ilmihiisa inuu haysto waa lagu ixtiraamaya waana loo tixgelinaya laakiin lama ogola inuu waalidku siduu doono ilmaha ka yeelo. marka mas-uuliyaddaasina waa mas-uuliyadda waalidka. marka waa la ogol inuu mas-uuliyadda waalidku qaato laakiin waxaa dusha ka ilaalinaysa hay'adda badbaadada carruurta ama dowladda mas-uulka ah. lambarka shanaad oo ah xaqulaanshaha nolosha yacni ilmuhu inuu noolaado oo uu nolol qiimo la helo nolol aad u wanaagsan inuu helo intii marka la aboodi karaba dowladda ay taasina mas-uuliyadda saaran tahay. marka dowladda waxay siinaysaa ilmahaasi nolol inuu noolaado nolol fiican ku noolaado. qodobka toddobaadna wuxuu leeyahay magaca ama muwaadinimada. qof kastoo ku dhashay waddanka Norway waxaa la rabaa in loo bixiyo magac. waxaana la rabaa ama sharcigu leeyahay waa in la siiyaa waxa loo yaqaano muwaadinimo. xuquuqdu qofka muwaadinkii leeyahay buu leeyahay. lama odhanayo ilmahan waa ilmo yaro shalay u dhashay lama odhanayo magarasa ilmahan waddanka ka soo jeedaa. mar hadduu ilmihii ku sugan yahay xuduudda Norway gudaheeda xaq waxa uu leeyahay inuu magac la siiyo in muwaadinimadiisa la dhowro
oo haddii sharci uu lahaa muwaadinimo laga qaado markaa dowladda ayaa mas-uulkaa inay sharcigaasi ilmaha dib ugu soo celiso oo wixii macquule la samayn karo markaa ay samayso ama dowladda looyar ha u qabato ama si kale ha ugu raadiso markaa mas-uuliyaddaana dowladdaa leh marka qofki waxaa la rabaa inuu magacna yeesho muwaadinnimadiisana in loo tixgeliya markaasi qodobka 8 magaraysa aqoonsiga waxa ilmuhu xaq u leeyahay ilmuhu inuu aqoonsado cidii dhashay markaasi inuu aqoonsado waalidkii aabbihi hadday suuragal tahay markaa waa xaqa ilmuhu mar walba uu leeyahay in loo helo ciddii ilmaha dhashay markaas siday doonto kalaa u dhacda laakiin ilmaha lama ogola inuu qof idhahdo anigaa iska dhalay ama anigaa keliday keensaday ilmo kasta xaq wuxuu leeyahay inuu ogaado hooyadii iyo aabbihii inuu ogaan karo xaq buu markaa u leeyahay qodobka 9 wuxuu sheegaya wada joogga qoyska xaq ayuu waalidku inay wada joogaan u leeyihiin in ilmuhu la noolaado waalidkiina xaq buu leeyahay laakiin hadday timaado la arko waalidku inuuna markaa gudan karin waajibaadkii waalidnimo oo loo arko markaa carruurta inay ku imanayso dayacaad ama carruurtuba ay codsadaan inay la noolaan karin waalidkood taasina markaa xaq waxaa u siinaysaa hay-adda badbaadada carruurta ama dowladdaba markaa in carruurtii laga qaado waalidka laakiin waxyaa badan baa la samaynayaa sharciguna wuxuu leeyahay ilmuhu xaq buu u leeyahay inuu la noolaado waalidkii ilaa intuisa uu leeyahay anigu ma rabo ama ay soo baxayso dayacaad ku timida markaa ilmaha qodobka 10 wuxuu sheegayaa waxaa loo yaqaana isu keenista ama in waalidkii carruurta la midayo meel layskugu keeno had iyo jeer sharcigu wuxuu odhanayaa ilmo kasta waxaa xaq u leeyahay in waalidkii loo raadiyo loo helo loona keeno markaasi sida ugu dhaqsa badanna markaa loogu keeno wuxuu kale ilmuhu xaq u leeyahay markaa haddii aan loo keeni karin markaasi in lala xidhiirsiiyo lala hadalsiiyo oo la ogeysiiyo waalidkii meesha uu joogo iyo sababta markaa suuragal uun ahayn inuu meesha markaa waalid ku joogo inuu ilmu yimaado ama meesha ilmuhu markaa joogo waalidkii inuu yimaadaan ahayn marka waa sharci uu siinaya ama xuquuq qofkuu leeyahay ilmihiisa loo keeno ama ilmaha in waalidkii loo keeno marka labada dhinac bay ka dhici kartaa markaasi qodobka 11 waxa uu sheegayaa inaan la ogoleyn carruurta in la afduubo ama waddanka laga saaro marka iyagoona aan la ogolayn haddii ay noqoto carruurta in waddanka laga saaro waxa weeye in sifo sharciya markaa looga saaro laakiin inta ilmihii la qaado isagoo raalli ka hayn in lagu sameeyo afduub oo waddanka laga saaro markaa sharcigu u yaalla waddanka Norway xuquuqda carruurtu ma ogola waxaa kaloo carruurtu xaq u leeyihiin waxa loo yaqaano xorriyatul qowlka iyo inay cabiraan fikirkooda oo ay sheegaan waxay doonayaan waxayna rabina markaa ay sheegaan lama ogola ilmaha in la caburiyo oo qofka waalidka ama cidda mas-uulka ka ama cidda u shaqaysa iyagu waxa aynay doonayn carruurta lagu qasbo markaa sharcigu leeyahay ilmuhu fikirkiisu cabiri karaa waxa uu doonayo isagaa sheegan karaa wuxuu diidayana wuu sheegi karaa markaasi markaa lama rabo ilmihi in la cabsi geliyo oo markaa lagu qasbo wuxuu markaa raalli ka ahayn qodobka 13 wuxuu leeyahay warbixinta ama xuquuqda ilmuhu leeyahay markaa inuu helo warbixin ama markaa in war la siin karo markaa ama in loo warrami karo markaa ilmuhu waxa weeye waxbuu gugalgarayn karaa waxbuu dhegaysan karaa si markaa uu helo magaranaysa information markaa taasina markaa sharciga ayaa siinaya qodobka 14 wuxuu sheegayaa carruurtu inay xaq u leeyihiin fikirkooda daryeelkooda iyo diintoodaba ilmaha diinuna aaminsan laguma qasbi karo waxa weeye diinta markaa uu aaminsan yahay ayaa xaq markaa dowladda ugu leeyahay in lagu daryeelo oo lagu taageero marka ilmaha hadduu muslim iyo kale lama odhanayo diin kala qaado ama diintaada ma samayn kartid xaq waxa weeye waajib u leeyahay markaa in lagu caawiyo diintiisa oo lagu daryeelo oo markaa sidii markaa uu rabay diintiisa inuu markaa u samayn karo isagoo laakiin markaa aan sababa inuu markaa ama laftiisa dhaawaco ama ummad kale u dhibaato u geysto marka waa sharciyan ama xaq u leeyahay ilmuhu inuu fikirkiisa cabiro inuu daryeelka waxay dantiisa ku jirto isagu uu sheego iyo inuu markaa xaq u yeesho inuu diintiisa sida isagu markaa uu jecel yahay uu markaa ilaahay u caabudo ama isagu u sameeyo qodobka 15 ilmuhu xaq waxa uu leeyahay inuu ku beeri karo ururo una qayb ka qaadan karo hadday noqoto markaa ururada ma garanaysaa kuwa kubadaha oo kale kuwa waxaan loo yaqaana danska oo kale kuwa dabaasha oo kale ilmuhu markaa waxyaabahaas oo kale xaq baa u leeyahay in markaa uu qayb ka qaato uu kana mid noqon karo markaasi qodobka 16 wuxuu sheegayaa nolosha khaaska carruurtu markaa looma diidi karo lagamana hor joogsan karo inay xiriir la sameeyaan qoyskooda iyo qaraabadooda iyo cidda markaa ay saaxiibada leeyihiin markaa sharciga ilmaha u ogolaanaya inuu markaa intaaba xaq u leeyahay inuu la xidhiidho oo qayb ka qaato markaa noloshooda markaa ilmaha waalidkii ama qoyskiisa looma diidi karo qaraabadiisa looma diidi karo xidhiir buu markaa la samayn karaa qodobka 17 wuxuu leeyahay ilmuhu xaq buu u leeyahay inuu helo warbixintaana waxaa siinaysa dowladda hadday noqoto buugaag hadday noqoto brograamyo markaa dowladduna had jeer waxay dhiirigelisaa hay-adaha sida telefishinadoo kale ama raadiyogoo kale ama kuwa waxqoroo kale inay soo saaraan barnaamijyo carruurta ku saabsan oo carruurtu ay ka faa'iidaan way carruurta waxaa la rabaa inay waalidkoo kale wax ka maqlaan maaha
inay macallinkoo kale wax ka maqlaan maaha waxa weeye inay heli karaan joornaalla ay akhriyaan filimo ay daawadaan barnaamijyo kale in loo sameeyo marka carruurta maskaxdooda lagu dhisayo laguna wacgelinayo oo la doonay markaa ilmahaasi inay maskaxdiisa iyo koritaankiisuba ay kor u soo kacaan oo uu noqdo ilmo la jaan qaadi kara mujtamaca ama bulshada ku dhex nool yahay markaasi wuxuuna xaq u leeyahay bulshada ku dhex nool yahay inuu wax badan ku ogaado sida u shaqaysa sida loo nool yahay waxyaabaha mamnuuca waxyaabaan mamnuuc ahayn qodobkii 18aad wuxuu sheegayaa mas-uuliyadda waalidku aabbaha iyo hooyadu si siman bay mas-uul uga yihiin ilmahooda ma odhan kara aabbuhu ilmahan anigaa aabba hooyadu xaq ma leh hooyaduna ma odhan karto ilmahan anigaa dhalo ilmuhu xaq ma leh waxa aad iyo aad muhiim u ah in mas-uuliyadda waalidku ay u siman yihiin si simanna u qaybsadaan si simanna loogula xisaabtamayo waa inta badan waxaad arkaysaa dadka sida loo badanya oo kale marka la kala tago carruurta waxaa looga tagaa hooyada oo aabbihii mas-uuliyaddii aabbanimada meesho inta badan ay ka baxdaa waxaa kaloo ina dhacdo hooyadu inay isku aragtay ilmaheedu kelida inay dhashay marka ay u diidda aabbihii xuquuqdii aabbanimo uu lahaa marka ama waajibkii ay saarnaa ama mas-uuliyaddiina markaa uu kala wareegto marka taasina inta badan waxaa carruurta geysa inay carruurtu dhibaato ku koraan oo had iyo jeer qaadaan cuqdad ah aawe aabbahay ama aawe hooyaday markaa sida sharcigu sheegi wax weeye ama ha la wada joogo ama ha la kala tago waa mas-uuliyad saaran labada waalidba inay mas-uuliyadda carruurta wada qaybsadaan oo ay wada korsadaan oo shaqada iyo dhibta carruurta ay leedahay ay qaybsadaan waa mid sharciyana xaqna labada waalidba ay u leeyihiin inay helaan qodobka 19aad wuxuu sheegayaa in laga hortago waxale wixii markaa ilmaha dhibaato ku ah ee khatar gelinaya waalidku lama ogola ilmaha inay u ogolaadaan wax naftiisa markaa dhibaato u geysanaya dowladda laftigeeda looma ogola hay-adaha badbaado looma ogola cid la ogolaya ma jirto marka wax kastoo la arko markaa ilmaha inuu khatar gelinayo waxaa mamnuuca in waxa xaq loogu leeyahay qofka waalidka ama cidda mas-uulkaa ee markaa meesha joogta inuu ilmaha ka qabto oo yidhahdo waxan xaq uma lihid ama dhibaato ku keenayaa ee ma samayn kartid qodobka 20 wuxuu leeyahay carruurta aan markaa waalid haysan maxaa laga yeelayaa sharciga ayaa carruurta damaanad qaadaya hadduu markaa ilmuhu aanu joogin waalidkii ama waalidkii dhintay ama dhibaato kaloo dhacday markaa mas-uuliyaddiisa ayna haynin markaa waalidkiisu sharciga ayaa damaanad qaadaya dowladda ee mas-uulka marka ilmaha aabbaha iyo hooyada haysta wuxuu helo ayuu kana marka xaq u yeelnaa inuu helo iskuul inuu helo caafimaad inuu helo wax walba inuu helo markaa sharciga ayaa damaanad qaaday taasi qodobka 22 wuxuu sheegayaa carruurta magangelyadoonka ama qaxootigii way xaq u leeyihiin inay helaan ammaan iyo nabadgelyo waxayna xaq u leeyihiin markaa sidii ugu dhaqsaa badan in markaa waalidkood loogu raadiyo lalana xidhiidhsiiyo markaas marka carruurta qaxootiga iyo kuwa kale wax xuquuqa isku mid ayay leeyihiin marka in nabadooda iyo badbaadadooda iyo caafimaadkooda noloshooda la sugo sharciga ayaa markaa u ogolaanaya qodobka 23 wuxuu sheegayaa carruurta markaa aan xiskoodu dhammayn ama waxa loo yaqaana handicapka ama caawimada dheeraadka u baahana waxay xaq u leeyihiin markaa inay helaan caawimadaasoo markaa ah mid qof wal oo markaa carruurtaa ka midaba la siiyo caawimaysaa ku baahan caawimada u baahan yahay hadday noqoto waxbarasho hadday noqoto caafimaad hadday noqoto adeega kale qofku u baahan yahay sharcigaa markaa damaanad qaadaya markaa ilmihii lama odhanayo ilmahani waa handicap oo lagama reebay keyrkii laakiin waxaa la siinayaa xuquuqdii iyo sharcigu uu lahaa oo uu qeexayo dastuurka markaa waddanka u yaalla qodobka 24aad ilmo kasta wuxuu xaq u leeyahay in la helo caafimaad inuu helo dhakhtar in la daaweeyo in wax alle wixii markaa isaga la soo gudbaanada dhinaca caafimaadka in la siiyo wuxuu markaa kaloo ilmuhu xaq u leeyahay hooyadii iyo waalidkii markaa in la daryeelo si markaa ilmahaasi u noqdo ilmo magaranaysaa caafimaad qaba oo nolosha wanaagsanay tusaale kale marka hooyadu uurka leedoo kale way xaq u leedahay maadaama ilmu ku dhex jiro in daryeel dheeraada loo fidiyo in magaranaysa waxyaabo badan lagu saacido si markaa iyaduna caafimaadkeedu u fiicnaado ilmaha markaa iman doonana uu u fiicnaado markaasi kadib markuu ilmuhaasi dhashana waxaa xaq ugu leeyahay in caafimaad daryeel uu helo sida qofku weyniba markaa uu helayo qodobka 25aad wuxuu sheegayaa carruurta ay dowladdu gacanta ku hayso waxay xaq u leeyihiin carruurtaasi inay helaan daryeel buuxa daryeelkaasi oo ah inay helaan meesha ay ku noolaan lahaayeen iyo nolosha uu haysta ilmaha kale caadigiiba qodobka 26aad wuxuu sheegayaa daryeelka carruurtu way xaq u leeyihiin inay helaan dhaqaalahaasoo markaa ay ku daryeelayaan naftooda tusaale oo kale haddii ay hooya carruur haysto ama aabba carruur haysto carruurtaasi waxaa la siinaya dhaqaale dhaqaalahaasina markaa waxa lagu daryeelaya carruurta waxa loogu dhiibaya markaa waalidkood ama markaa ciddii kale mas-uulkaa markaa ilmu inuu dhaqaale helo ama lacag uu helo uu naftiisa ku maareeyo xaq baa uu u leeyahay waxaana siinaya markaa dastuurka qodobka 30 wuxuu sheegaya nolosha caadiga ilmuhu wuxuu xaq u leeyahay inuu helo nolol qof heli karo nolosha ugu wanaagsan waalidiinta iyo cidda ka mas-uulkana marka waxaa laga rabaa inay ilmaha siiyaan
wanaagga iyo waxa uu xaqa u leeyahay dowladdu marka waxay ku qasban tahay in markaa ilaaliso ay sugto ilmahaasi xaqa iyo xuquuqda uu leeyahay si markaa u helo nolol wanaagsan oo dhammaystiran qodobka 16 wuxuu sheegayaa carruurtu inay helaan waxbarashadaasi wadamadan iminka qurbaha masiibo waddankan joognay Norway oo kale galaaska 1 ilaa 10 waa qasab ilmo kasta inuu dhigto oo lagu qasba markaa cidna lagalama maragsanayo sharciga ogol ilmahaasi markaa inuu iskuul inuu helo dibadna markaa iskuulka uu dhigto ilaa galaaska 1 ilaa 10 laakiin marka 10 la gaadhay dugsiga sare loo gudbo ilmo markaa qasabku maaha uu dhigan karaa hadduu doono ma dhigan karo laakiin ilmo waxaa jira da'da ilaa uu ka gaadhay 18 inuu haddii isagu markaa uu rabo xaq uu leeyahay inuu helo iskuul marka dowladda mas'uuliyadda ay saaran tahay iyaga markaa iskuul soo helaya iyagana markaa meeshii ganaya laakiin laguma qasbayo mar hadduu galaaska 10 dhaafo lama odhanayo waa qasbay iskuul tagtaa ee doorasho isagaa leh laakiin hadduu markaa isagu doorto inuu wax sii barto xaq buu markaa u leeyahay in wax la baro oo iskuul loo helo oo markaa aqoonsi sii wato qodobka 19aad waxa weeye ujeedada waxbarashada maxaa ilmo waxbarasho loo geeyay ilmo waxa loo geeyay waxbarasho waxa weeye inuu barto macnaha ay tahay nabadu inuu fahmo nolosha inuu noqdo magaranaysa ilmo wax fahmay oo bartay sida ay waxay tahay nabadu sida ummadda loo noolaado sida mujtamaca loo dhexgalo sida loo samaysan karo saaxiibo waayo waxbarashadu waxa weeye waxa kaliya qofka ka fogeynaysa inuu dhibaato galo ee geynaysa magaranaysa inuu wanaag sameeyo marka waxbarashada hay jeer ilmo waxay ku hogaaminaysaa inuu ilmahan noqdo ilmo dhammaystiran oo had iyo jeer u fikira dhinaca wanaagsan oo ka fogaada xumaanta aqoontu marka waxay abuuraysaa dhaqan wanaagsan korriin wanaagsan in la isku dulqaato in ilmuhu markaa barto magaranaysa waxa loo yaqaan dulqaadka marka aqoontu marka ujeedada laga leeyahay wax weeye ilmahaasi inuu noqdo ilmo dhammaystiran oo wax badan oo wanaagsan bartay qodobka 30aad dadka laga tirada badan yahay iyo dadka dhulka loogu yimiday dhammaan dadka laga tirada badan yahay waxay xaq u leeyihiin inay helaan xuquuqda ay u leeyihiin kuwa kaleba inay helaan qofku afkiisu ku hadli karaa luqadiisu ku hadli karaa dhaqankiisu uu samayn karaa dharka uu markaa isagu rabo ayuu ku labisan karaa lama ogolo markaa qofkan in la yiraahdo wadan cusub baa timid dhaqankaaga iyo diintaadi waxaagii allaahid oo dhan ka tag lama odhanayo sharciga markaa ogolaanayo qofkan inuu xaqiisii helo maadaama uu ku cusub yahay wadankan qodobka 16aad wuxuu leeyahay carruurtu inay helaan waxa loo yaqaan activity-ka ama meelaha ay ku ciyaaraan inuu markaa ilmihii helo xorriyad inuu soo ciyaari karo inuu asxaabtii la kulmi karo inuu waqti fiican la soo qaadan karo waxa loo yaqaan magaranaysa freetidka ama qofku inuu markaa asxaab yeelan karo waqti la soo qaadan karo sharciga markaa taan ogol ilmaha qodobka 30aadna wuxuu leeyahay shaqada iyo carruurtu lama ogola in lagu shaqaysto laguma ogola in lagu xadgudbo lama ogola carruurtu inay qabtaan shaqo ka xanibaysa ama ka hor istaagaysa waxbarashadooda iyo korriinkooda caafimaad ahaan marka had iyo jeer wax la tixgelinayaa ilmahaas in aanu noqon mid victim u ah ama mid lagu shaqaysto inuu noqdo ilmo loo shaqeeyo marka ilmaha in lagu shaqaysto lama ogola waana mamnuuc ama faraxumayn ama kufsi ama in dhibaato loo geysto sharcigu marnaba ma ogola qofkii arrintaa lagu qabtan wax laga yaabaa inay dhibaato soo gaadho markaa sharcigu ka difaacaya carruurta in loo geysto wixii dhibaato jirkooda soo gaadhsiinaya qodobka 17aad wuxuu sheegaya inaan la ogola ilmaha in la afduubo in loo galmoodo iyo in magaranaysa in la kala iibsado markaa sharciga ayaa dowladda iyo mas-uulka inay ka ilaalisa ilmahaas in loo galmoodo in markaa ilmaha la faraxumeeyo dhibaato loo geysto iyo in ilmaha markaa la iibiyo noqdo ilmo markaa laga ganacsanayo la kala iibsanayo marka ilmahaasi ama dibadda wadanka ha noqoto ama gudaha noqoto dowladda mas-uulka markaa lamana ogola carruurta in la kala iibsado laga ganacsado ama in la faraxumeeyo ama in afduub looga geysto midna lama ogola haddii aan tusaale kelmadda afduubka oo kale waxoogay jilciyo waxa weeye ilmaha qofka waalidka lama ogola in wadanka qasab uga saaro waayo hadduu markaa la ogaado ilmahaas in la qasbayo qasab wadanka looga saarayo taasi markaa inta badan waxay keenaysaa dhibaato markaa dad badan waxaa jira inay yidhahdaan carruurtayda waxaan u samaynaa dhaqan celis ama waddankeenu dib ugu celinaynaa iyagoo markaa farsamooyin kala duwan isticmaalaya markaa qofkaasi hadduu ilmahaasi caddeeyo yidhahdo aniga aabbahay hooyaday way qasbayaan meel aan la rabin bay geynayaan waxay noqonaysaa markaa afduub markaa taasina lama ogola dadka waalidiintu waa inay ka digtoonaadaan oo had iyo jeer ay waafaqaan sharciga markaa waddankan ay joogaan u dhigayo qodobkiisa 30aadna wuxuu leeyahay in carruurta laga faa'iidaysto marka dowladda ayaa ka mas-uula in carruurta laga faa'iidaysto da'dooda yar ama in dhibaato loo geysto marka waa mas-uuliyad hada jeer dowladdu saaran marka haddii qof lagu ogaado in carruurta sidii aan habboonayn uga faa'iidaysanayo marka waa la ciqaabaya dowladdana tallaabo ka qaadaysa marka sharcigaasina markaa lama ogola qodobka 19aadna wuxuu sheegaya carruurta inaan la cabsi gelin la ciqaabi karin loo hanjabi karin waayo ilmaha lama ogola in loo cagajugleeyo
in wuxuuna rabin lagu qasbo in markaa waxaanu raalahayn lagu sameeyo lama ogola marka had iyo jeer waxa weeye waxyaaba carruurta ciqaabta lama ogola had iyo jeer ilmaha in la dilo lama ogola in loo hanjabo in lala dagaalo in la yidhahdo magaraysa waxaasan kuu samayn haddaad waxaa samayn weydo lama ogola marka had iyo jeer waa la iska ilaaliyo waxyaabaha keenaya had iyo jeer in ay dhibaata ka timaado qodobka 4aadna wuxuu sheegayaa in carruurtu ka dagaal ka qayb qaataan lama ogola ilaa ilmo intuu ka hooseeyo 15 laakiin 15 markuu gaadho waa la weydiin karaa laakiin ilmo ka hooseeya da'diisu 15 lama ogola inuu ka qayb qaato wax loo yaqaano dagaalkaasi markaa noocu doonaba ha ahaado ama kooxa ha noqoto ama dagaal qori laysku adeegsanaya ha noqoto marka noocay doonto ilmo inuu dagaal qayb ka qaato lama ogola intay da'diisu ka hooseyso 15 qodobka 4aadna wuxuu sheegay wax loo yaqaano dhaqan celinta ama dib u tarbiyeynta haddii markaa ilmaha loo geysto dhibaato haddii la kufsado haddii xumaan loo geysto markaa xaq wuxuu yeelanayaa wixii in laga daaweeyo nolosha dib loogu soo celiyo wax la baro markaa ilmaha nolosha caadiga in lagu soo celiyo oo laga daweeyo ama laga kabo dhibtii hore u soo gaadhay ahayd dhaawac jirkiisa soo gaadhay hadday noqoto in lagu shaqaysta haddii doonto hadday dagaal ka qayb qaatay hadday noqoto dhibaato dhinaca maskaxiyana hadday noqoto dhibaato dhinaca caafimaadka markaa ilmahaas xaq wuxuu leeyahay in laga kabo laga caawiyo si nolosha caadiga dib loogu soo celiyo qodobka 4aad wuxuu sheegayaa eegista dacwadaha ilmuhu markaa xaq wuxuu leeyahay haddii dacwad ay timaado in ilmahaas markaa dacwad qabsan karo in loo qaban karo inuu haddii una luuqadda fahmayn turjubaan loo samayn karo inuu maxkamada dhammaanta koobaad ilaa ta u dambayso uu mari karo xaq uu leeyahay marka iyadoo markaa dowladdu ay caawinayso ama markaa ciddii mas-uulka ay caawinayso lama odhan karo waa ilmo yar markaa xuquuqdiisa dhinaca loo riixo sida qofku inuu xaq u leeyahay ayaa markaa ilmo yar xaq u leeyahay inuu helo wixii markaa u baahnaa dhinaca sharciga marka haddii tusaale kale haddii sharcigu soo baxo uu sharci hore markaa jiray mar walba ilmo waxaa loo tixgelinayaa sharciga ugu wanaagsan markaa ilaalinaya ama sugaya xuquuqda ilmaha marka lama odhan karo magaraysaa sharcigaasi hadda soo baxay ma rabna sharcigii horaan rabnaa hadda jeerba sharciga cusub markaa la leeyahay sharcigan baa kii hore ka wanaagsan ayaa markaa la qaadanaya markaa sharcigu ka dambeeyey ayaa inta badan soconaya oo la tixgelinaya si loogu ilaaliyo ama loo dhowro xuquuqda carruurta qodobka 4aad ee ugu dambeeya in la barto xuquuqda ay carruurtu leedahay ama sharciyada ku saabsan carruurta waxaa had iyo jeer mas-uuliyaddaasi ay saarantay dowladda marka dowladda laga rabaa inay barto waalidiinta xuquuqda dhammaan ay carruurtu leeyihiin si loo sugo carruurta xuquuqdooda waayo waalidku waa muhiim waana qofka koobaad ee mas-uuliyadda haya marka laga reebo dowladda marka inuu qofka waalidka barto xuquuqda carruurta si uu markaa u daryeelay carruurtiisa ama uga badbaado hay-adda badbaadada carruurta ama isagii dowladdu aan iska hor iman ama isagii ilmihiisu aan iska hor iman waxaa had jeer qofka waalidka waajibka inuu barto waddanka uu joogo sharciyada u yaalla carruurta si markaa ilmihiisa habka ugu wanaagsan ee uu korin karo ugu koriyo markaa waddankaasi waa inta badan waxaad arkaysaa dowladdii iyo dadkii inay isku jahwareereen oo la kala saari laayay sharciga carruurta iyo waxay carruurtu xaq u leeyihiin iyo waxyaabayna xaq u lahayn inta badanna waxaa dhacda dadka ajnabiga oo kale inay la kulmaan waayo waddankoodii kamay jirin xuquuqdani xataa hadday jirtana sidan oo kale markaa looma tixgelin jirin ama looguma dhaqma jirin marka dowladda waxaa laga rabaa in waalidiinta ay u furaan fursad ah inay waalidiintu bartaan xuquuqda carruurta waalidiintan waxaa laga rabaa maadaamay waddanka korsanayaan carruur waxa ugu qaalisan ay haystaana carruur ay tahay inay guryaha ka soo baxaan oo ay ku dadaalaan ay bartaan xuquuqda carruurta waddanka marka ay joogaan barnaamijkeeni arrimaha bulshada intaan kusoo koobayaa waa anigoo Jamaal Axmeda dhinaca farsamada waxaa saaxiibkay Maatur Bashash waa raadiyo maqal barnaamijkeeni arrimaha bulshada tan iyo wiiga soo socda wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu